dibadbaxyadii shalay ka dhacay magaalooyin badan oo ka tirsan waddankani Koonfur Afrika ayaa waxay khasaare ka soo gaaray qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsada magaalooyinka Cape Town xilli mudaharaadayaasha ay socod ku marayeen wadooyin waaweyn oo ku yaala magaaladaasi. Ganacsiyada khasaaraha ka soo gaaray ayaa waxaa ka mid ah miisas iyo ganacsiyo kale oo loo yaqaan waratada oo ah kuwa lagu iibiyo hareeraha wadooyinka, halkaasi oo maran u ahayd dadkii dibadbaxa sameynayay oo cagta mariyay wixii ganacsi ah oo goobahaasi ka ag dhawaa. dibadbaxayaashan ayaa waxay ka cabanayaan mishaar yari soo food saartay tan iyo wixii ka dambeeyay koobka kubadda cagta adduunka ee sanadii 2010 lagu qabtay waddankani Koonfur Afrika. dibadbaxayaashaasi ayaa waxay sheegeen in ay dowladda ku codsanayaan in loo kordhiyo mishaaraadkooda, haddii kalena waxay wacd ku mareen inay sii wadi doonaan dibadbaxayaasha kuwa ka waaweyn kuwa ay hadda dhigeen, islamarkaana laga yaabo inay dhalin karaan khasaaro kan ka weyn. gudoomiyaha jaaliyadda Somali Community Board oo TV-ga caalamiga ah Royal TV ugu waramayay goobaha banaanbaxayaashu ka socdeen ayaa wuxuu ka warbixiyay khasaaraha soo gaaray Soomaalida. khasaaraha Soomaalida gaaray waa 12 dukaan ilaa iyo haddana dukaantu way xiran yihiin oo wax furan ma jiraan, marka aad baan loo baqanayaa. ma garanayno xilli kasta ayay iman karaan, dawladuna way hor taagan tahay, dadkuna ilaa iyo waxay gaarayaan 10,000 oo ruux bay gaarayaan. waxayna soo bilowdeen isniintii la soo dhaafay ilaa haddana way sii badanayeen, ilaa jimcaha soo socotana way gaarayaan. mudaharaadyadani shalay iyo maanta ka dhacay xaafadaha iyo deegaanada Cape Town ayaa waxa ay walaac murugo ku beereen ganacsatada Soomaalida ay ka xamaasha deegaanada ku dhow magaalada Cape Town, iyadoo hore daala dhacay weerarada kaga imanaya kooxaha burcad South Africana, iyadoo shalay iyo maanta albaabada u xiran yihiin goobaha ganacsiyada Soomaalida ee magaalada Cape Town.